aan ku soo dhawaado arinta doorashada Somaliland halka wax ku soo gaadhay doorashooyin xisbiga kulmiye xukuumaddiisu waxaanu diyaarinahay doorasho dalkeenu waxa uu soo galay ugu yaraan 8 ama 9 doorasho oo kala duwan haday tahay golayaasha deegaanka haday tahay doorashada baarlamaanka haday tahay doorashooyinka madaxweynaha kulmiyana wuxuu aaminsan yahay Somaliland waxay horumar ku sii gaari karto ee walaaltinimada Somaliland iyo gacmayshaysadka Somaliland iyo ummadda jacaylkeedu waligiiba ku soconaya waa ku sigaasoo lagu tartamo markii waqtigiisu joogaba doorashada Dubai nooga dhacday 2 sano sanadkii labadii markaynu ku jirro waana dhici jirtay oo doorashadii madaxweyne Daahir Yalan Dubai nooga dhacday tii madaxweyne Siilaan 2 sano dib u dhacday tanna waa inaynu waqtigeeda soo socdoon qabsanaa inagoo isticmaalo walaala oo qof walba waxa uu dadka ka iibinaya ee codka ku doonaya oo keeno waayo xaqiiqadu waxa weeye Somaliland laga soo bilaabo doorashooyinkii kala dambeeyay madaxweynaha kursiga waxaan codka dadka ahayn lagu mafuulo imikana waa sidii kursigaasi codka dadka ciday shacabku siiyaan codkooda baa madaxweyne noqon doonta ama xisbiga kulmiye ha noqdo ururada siyaasiga iyo xisaabta mucaaradka qofkii ilaahay ma taqaana shacbiga codkiisa kasbada ee ku kasbada walaalayaal codsiya ee ku kasbada walaalayaal cida doontaan siya ee ku kasbada wuxuu qabtay oo umada ka iibin karo taana hadaan xisbiga kulmiye nahay diyaar waxaan u nahay doorashooyin horaan u qabanay inta soo doorashaan u qabanay oo tira lahayn haday tahay xukuumadii Axmed Maxamed Maxamuud Siilaan haday tahay xukuumadda madaxweyne Muuse oo doorashooyinkii deegaanka iyo tii wakiilada tii madaxweynaha ku soo baxay iyo ta dambe madaxweynaha imika qaban doona hadii ilaahayda anagu marka waxa naga go'aana waxa naga tala waxa naga walaaltinimo in doorashooyinka isugu nimaadno oo aynu ka shaqeynay doorashooyinka si u qabsan lahayn way u qabsoomi lahayn way doorashooyinka laftooduna shuruuc bay u baahan yihiin wata golaha wakiilada ay taalo ta golaha gurta waxa laaliyo waxa muran iyo isfahm waa keenaya waa inaynu ka ilaalinaa waa inaynu isku soo dhaweynaa waxyaabaha khilaafka keenaya aynu khilaafka waxa keenaya intaynu ka fogaan aynu isku soo dhaweynaa dadkeena isku soo dhaweynaa taageere isku soo dhaweynaa shuruucda aynu doorashada ku gal lahayn waa inaynu shuruucda degdeg uga shaqeynaa waa inaynu waxa laaliyo wixii keenaya dib u dhac doorashada waqtigeedu imika noo cayiman yahay inaan inagoo gacmaha haysaysan ka wada dadaalo way inuu dhamaanteen dadaalo way hadaynu samidimid taa ku socono hadaynu yaani gacmaha intaanu isqabsano doorashada saynu u qabanaa taladeeda isweydiin weyno waxa in waqtigu nagu dheeraanayo marka taana diyaar kulmiye kulmiye wuxuu diyaar u yahay doorashada oo waqtigeeda nagu dhaafin ayaanu ka shaqeynayna miisaaniyada ku jirta taladeedaanu leenahay hadaan xisbi ahaan wax u geeshi gelinaa doorashadaas inay si wanaagsan u dhacdo